Annyeonghaseyo Yorobon. Kusoo dhawaada channelkayga. Please channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe dheh si aad ula socoto casharada kale aan soo gudbin doono. Sidoo kale ayna ugu faa'iideystaan dad badan ee raba inay bartaan luqadda Kooriyaanka. So, maanta waxaynu baranaynaa sida loo akhriyo erayo fudud. Okay, mid xasuusnaaw. Eray kasta waxaan u kala jebinaynaa qaybaha syllables si aan si fudud ugu akhrino. Okay, tusaale camal kaasu. waxaan u akhrinaynaa marka hore kaasu, yani syllable qayb syllables camal u akhrinaynaa. Okay, aynu bilaabno. xarafkeena ugu horeeyo, ereygeena ugu horeeyo kaasu, fanaan. naara, wadan. hakyo, dugsi. saram, qof. chingu, saaxiib. irim, magac. hanguk, Korea. Okay, meeshan guk ee tahay ga'da ugu horeyso waxaad ugu dhawaaqaysaa ga. laakiin ga'da ugu dambeysa ka camal ugu dhawaaqay. hanguk. Okay, sarang, jacayl. hakseng, arday. songsenim, macalimad ama macalin. Jungkook, China. France. Okay, talooyin muhiim ayaan ku siinayaa. 5 tale ee muhiim ah. Lambar 1, ha isku dayin in ereygoo dhan hal mar aad akhrisid. Lambar 2, marka hore kala jibi ereyada syllableska si kiciskoo kugu fududaado. Lambar 3, tartiib u akhri. Lambar 4, ku celceli 3 ilaa 5 jeer erey kasta. Lambarka 5, markaad fahanto akhriska kadib macnaha si fudud ayuu kugu imaanayaa. Okay, tirig aan ku sii marka. Okay, haddii aad aragto erey dheer first, kala jibi. Second, akhri qayb. Third, isugey markaas wada akhri. Okay, halkaan ay cashirkeenu kusoo koobaynaa. waxaan leeyahay ereyadana ni siiyey barta ee xifdiyo. sidoo kale commentiga kusoo qoro qof walbo magaciisa oo ugu qoran qaab Kooriyaan ah. cashirka kale xiga waxaynu ku baran doonaa self introduce. marka la soco channelka and subscribe, share and like si aad ula socoto muuqaalada kale. aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina. mac salaamo.